kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maaweelada dhalanka oo ka daawataan marka soo booqataan channeladaanu ku leenahay YouTube iyo Facebook ee dhalan Korea toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada maanta idinku haynana caruuray waxay ku saabsan tahay kaartadii jiirku kaga xoroobay bisad jiir iyo bisad waxa laga yaabaa sidoo kale inaad u taqaanid dooli iyo mukulaal midda doontaba u aqoonow oo labaduba waa sax balse sheekadeenu maanta waxay ku saabsan tahay labada xayawaan ee magacooda aynu soo sheegnay iyo labada nooc loo kala yaqaano dooli iyo mukulaal ama jiir iyo bisad aanse ku bilaabo waxa la yiri bari hore waxa jiray qoys lamaane ahaa waxayna aabbo iyo hooyo waayeela waxayna kalidood ku noolaayeen guri ku yaalay magaalada koonahooda waxay haysteen bisad ama mukulaal balse bisadu ma ahayn xayawaanka kaliya guriga ku nool waxa qayb ka mid ah guriga dhanka kale kaga noola qoys jiir ah ama dooliya waxay ahayn qoys ballaaran balse ku noolaashaha guriga waxay ku qabeen dhibaato weyn maadaama bisada guriga dhanka kale kaga nooli marnaba aysan u ogolayn inay xorriyad guriga ku joogaan kuna qadhaabtaan dhibaato aan yarayn ayay habeen iyo maalinba ku haysay mar kasta oo ay ka soo baxaan gurigooda iskuna dayaan inay cunaan waxa baacsata oo dabagasha bisada taasoo noloshooda ciriiri gelisay muddo kadibna waxayba noqotay xaalad adag oo aysan la sii noolaan karaynin ilaa ay ka fikireen mar kasta oo habeenkii bannaanka u soo baxaan waxay isku qariyaan si tartiiba si ay xoogaa cunaa u soo urursadaan balse inta badan dhibaato la'aan arrintaas ku mahir gasho habeenada qaar naftooda ayaa khatar badan gasha habeenada kamida oo naftoodu ka badbaaday weerar culus ay ku soo qaaday bisadu ayay jiirkii isugu yimaadeen hooyada ayaa isugu yeedhay qoyskeeda waxay ku tidhi dhammaantiin ma joogaan carruurtaydii ma dhan tahay oo ma nabad qabtaan waxay ugu yeedhay xoogaa cunna ay soo heleen kadibna dhammaantood ayaa qolka cunnada wada fadhiistay markay cashada bilaabeen ee markaasun qoyskii oo dhani wada fadhiisteen ayaa duulaan lama filaana waxaa ku soo qaaday bisad ama mukulaal waxay burburisay oo kala jabisay miiskii ay ku cunaynayeen markii dambena mid ka mid ah jiirarka ayay dabada qabsatay si ay bannaanka ula baxdo wuxuu u qayshaday walaaladii waxaana caawisay gabadh ay walaal ahaayeen sidaas ayuuna kaga badbaaday dhagarta bisadi maalintaa la damacsaneed jiir tan iyo maalintaa laga bilaabana waxaa qoyska reer dooli ama jiir u caddaatay inaysan xaaladda tan ku sii jiri karin maalintii dambena aabbaha qoyska dhalay ayaa isugu yeedhay shir baa loo fadhiistay waxa uu yidhi wax kastoo aynu samayno waxa hubaalay inaynaan sinaba bisad ama mukulaal kaga badbaadayn waxay leedahay dhaga fiiqfiiqan si kasta oo inuu raatirano sanqadhiina ayay maqlaysaa waana sababtay habeen iyo maalin inuu daba joogto ee meel laba aynu kaga badbaadi weynay waxaan u baahannahay xal ay nolosheenna iyo mustaqbalkeenna ku badbaadino bal mid kastooba fikir waxay adiga kula tahay intii ay kuwa kala fikirayeen ayaa mid ka mid ah jiirarka oo kan ugu dada yar la markiiba helay fikrad cajiiba wuxuu yidhi waa run oo bisad meel laba kaga badbaadi mayno laakiin anigu fikrad ayaan hayaa waxay fikraddaas u tahay inaynu bisada amba mukulaasha u xidhno koor taasoo aynu sanqadheeda maqli karno marka ay nagu soo socoto si aynu uga oradno waxay ahayd fikrad cajiiba ooy dhammaantood u bogeen waxayna ku yidhaahdeen runtii tan waa fikradda ugu wanaagsan ee qof ku fikiri karo balse dhibaatada fikraddani waxay tahay waayo geesiga ku dhiiranaya inuu bisad qoorta u sudho koor mid kasta naftiisa ayuu u baqay balse dhammaantood waxay ogsoon yihiin inkan yahay xalka ugu wanaagsan midkii ugu yaraa oo ah kan ugu dhiiran ayaa yidhi aniga ayaa hawshaa fulinaya balse waa inaan iskaashannaa habeenkii waxaa ilaale waardiye ah loo diray aabbaha qoyska wuxuuna habeenkii dhan eegayey qorshaha bisad wuxuuna ogaaday xilliga ay seexato iyo goobta ay seexato kadibna kaarta weyn ayay dejiyeen waxay ka bilaabeen inay xidhaan digsiga cunnada lagu karinayo si urta looga daboolo bisad oo aysan waxba u orinin kadibna dhagaha ayay kaga tuureen burush
mid walba si aanay sanqadhooda u maqal. Markay ku guulaysteen inay dhagaha u fureeyaan bisad ayay kaarta weyn samaysteen iyagoo dhammaantood iswada haysta gacmaha iswada qabsanaya ayay kor kaga soo degeen meel ka sarraysay kadibna qoorta ayay si tartiiba ugaga soo tuureen koorta waxayna u gashay luqunta wayna isku geejisay kadibna si nabad qaba iyagoon wax dhibaato ii gaadhin ayaa waxay ku guulaysteen inay qoorta u sudhaan dawan amba koor sanqadh dheer oo qoorta bisad ugu jirta. markastoo ay dhaqaaqdo amba xaggooda u soo kacdo waxay maqlayaan sanqadheeda wayna ka ordaan. maalintaas laga bilaabana mar dambe bisada khatar ma gelin nolosha dooli amba jiir. waxay hayeen qorsho weyn oo ay ku guulaysteen. tan iyo maantana waxay qoyska jiirkii ku nool yihiin nabadqab iyaga waa noloshooda uga baqayn in si mooganaana amba gaadma ay mukulaali ku waxyeelayso. sheekada tan carruurey waxaan ka baranaynaa wanaagga ay leedahay iskaashiga iyo fikradda la wadaaga. intaynu dhowaan mar kale ku kulmayna sheekada tan xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. waqtigu ha idin wacnaado.